يراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. نبينا صلى الله عليه وسلم وحيره من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن 5 arrimood yaa iga qaata oo ku dhaqma ku camal fala ama gaarsiiya oo bara cid ku camal fasha yaa ima inaad adigu ku camal fasho oo aad qaadato dhaqan geliso yaa ima inaad sii gaarsiiso cid kale ku dhaqanto ku camal fasha Abu Hurayra وحديث كورنا وحوي سؤاشا مركو النبي قويدي صلى الله عليه وسلم الصحابة هي وحن إريبوري أنا يا رسول الله أنا قاضنا يا شنطة الريموت وحوي لي مركز النبي صلى الله عليه وسلم كعنت إذا قبتي فعدهن فيها كعنت إذي سقوها هي وشنتي arrimood nabigu ii tiriyay buu sallallahu alayhi wasallam gacantaydu ku tiriyay marka 5 arrimood oo muhiim ah qodobka koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay xarimay oo uu ku diiday oo uu ka reebay iska ilaali haddaad sidaa yeesho waxaad noqonaysaa addoommada ilaahay midka ugu cibaado fiican ka ugu sita dhanka cibaadadaad noqonaysa waa qodobka u horeeya waa diinta markii la isu geeyo qodobka lafdhabarta ah ee ugu khayr badan waa xalaal miirashada waa inuu ruuxu maxaarimta wixii ilaahay xarimay isaga fogaado iska ilaaliyo taasa waxay tilmaamaysaa inuu ruuxaasi ruux diin leeyahay addoon ilaahay addoonnimadiisii xaqiijiyeyna inuu yahay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu leeyahay diintiina waxa u khayr badan xalaal miirashada iyo ruux xaaraanta inuu isaga fogaado bimacnaa waxaad garan kartaa maanta waxaad helaysaa dad aad u cibaado badan oo soom badan oo salaad badan oo i'tikaaf badan oo cumrada aan kala goynaynin oo diyaarad sii saaran oo soo saaran haddana baabka marka la yimaado xaaraanta iska qasanaya aad bay u badan yihiin sooma aad bay u badan yihiin inaad adagto dad ruux salaad badan oo soom badan oo cibaado badan oo way badanta laakiin inaad aragto ruux xaaraanta iska ilaalinaya iyo shahawaadkiisa kontroolaya khaasatan markay adduunyo iyo maal gasho waa yaryahay halkaasaad ka garan kartaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu leeyahay ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay xarimay ka fogow iska ilaali waxaad noqonaysaa adoomada ilaahay midka ugu cibaado fiican adoonka ugu sitay ugu fiican baad noqonaysaa qodobka koobaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmay waa kaas qodobka labaadi nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas wixii ilaahay ku qayb ku siiyay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku qoondeeyay raali ku noqo ilaahay baa wax qaybiyay adoomadiisa wax u qaybiyay cimrigiibu u qaybiyay xoolihiibu u qaybiyay aqligiibu u qaybiyay caruurtiibu u qaybiyay quruxdiibu u qaybiyay milkigii iyo kursigiibu u qaybiyay allah baa waxan qaybiyay tabaaraka wa tacaala wuxuu qaybiyay rabbi tabaaraka wa tacaala xidli aan kownkan bal la dhisin baa waxan oo dhan la qorsheeyo la qoondeeyay wixii kugu soo hagaagi lahaa iyo wixii lagu siin lahaa maalinkaas la xariiqay haddii la xariiqay wixii ilaahay ku siiyo qayb ahaan ku siiyay raali ku noqo ku qanac
هكو يرادو هكو بدنادو انت إلهي كاسيي الحمد لله إيمان سو وحي إلهي كو قنديو كو قرشي هداد كو قنعدو رالي كو نقطو أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون أغنى الناس dadka ruuxa ugu taajirsan baad noqonaysaa ugu qanisan sababtu maxay tahay laana sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs xoolo badni iyo hanti badni ma aha qaninimada iyo taajirnimadu inay gacantaadu buuxdo ma aha inay akawnadu ku buuxaan ma aha taajirnimada dhabta ma aha لكن تاجر نمضى ربتي وحويان إن قلبي جاكو وتاجريه إن القناع سنته إن إلهي وحكسي رالي قطع إن الإيمان كاجا قبته تاسع واحد تايب النبي صلى الله عليه وسلم غني لماذا ربته قضب كاس صدحات والرسول كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه أحسن إلى جارك تكن مؤمنا درس كاجا وناك السماء مؤمن بعد نقونه درس كاغو ياوه أفرتن غوري أو أفرت دينعكاك لحكتاي ودرس كاغا ومقالة دان أفرتن غوري وأفرت دينعكاك لحكتاي كل ودرس كاغيوا إحسان أصمه إحسان كوحل اللي يدابي لنا حلمته بمعنى بذل الندى وكف الأذى وحي دبكاغا كرب وحي داف iyo wanaag aad la dheertahayna gaarsi oo wax ka sii darisku waa meelaha ay diinteenu xoog ka saartay saas daraadeed labada qodob ee lagu xijiyay nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam baad ka garan kartaa ahsin ila jarik hay kutusi iimaan xadiidkii fi sahih ku yimid baa tilmaamayo نبي يقول صلوات ربي والسلام عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلهي بان كدارته مر مينين إلهي بان كدارته مر مينين إلهي بان كدارته مر مينين markaas saxaabadu xina rasuul ilaahay oo kaasi waa mid khasaaray oo hoogay tolo yaa waay ninka saddex goor nabigu saddex dhaarood istaba dhigay inuu san rumaynin oo iimaan lahayn waa kuma nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam من لا يأمن جاره بوائقه النبي صلى الله عليه وسلم والروح أن درس كيس آمن كأهن شركيس بوائق النبي قال فسروي ويدين صواح صحابه البوائق معايد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم شره وشركيس أفكاك يأدن كاغا هدو درس كاغو كبد بادي وايا دليل وحيقطها إيمان كاغو إنه وحسكيه لأن علامة الإيمان وحويان إن درس كاغا الإحسان الصميس ساستردد بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكن مؤمنا علامة إيمانك اللي كرتوه قضبك أفراد نبي صلوات ربي وسلام عليه ودردار مي وحوي صلوات ربي وسلام عليه درس كمركو كهالله أيو قضب كأفراد رسولك وكردك صلوات ربي والسلام عليه أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ضدك الله تعلو واحد نفط هذا الله تعشه مسلم بعد نقونه محل نفط هذا الله تعشه وحي خيره وحي خيره نفط هذا الله تعشه ضدك الله تعلو طبعا وحي نفط هذا الله تعلينا ضدك الله تعلانين حديثك وحكاه الله يا وتعيل كقلبك ودونيتان كقلبك خير ما لا تعيشه نفط هذا ضدك الله تعلو حضرتها حتعيش هاي وناك حتعيش إن الحوله هشوا حتعيش إن العروه هشوا حتعيش إن الدين هشوا حتعيش إن الدبتقليه هشوا حتعيش هاي وحي وناك ورنب تعيش وحي كل ما يورنا ونعبت تتكسيدا سوق لك سوقات نفط هذا وكلك سوقات وحي أن نفط هذا آدم لا تشعلين تتك لا تشعلان وشرعي ربا وحي نفط هذا الله تعيشه وناقنا لا تشعله بالنبي يقول صلوات ربي وسلامه وميزان عجيب أول وميزان عجيب أول
markaad la jeclaato jacaylkaasi muxuu baabi'inayaa wuxuu baabi'inayaa waxa la yidhaahdo anaaniyada iyo xasadka qodobka shanaad ee ugu dambeeya xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku leeyahay sal alla alayh wasalam walaa tukthir addaxik faina kahrata addaxiki tumiitu alqalb qosolka ha badinin qahqahda ha badinin maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbiguu dilaa waxaa kala duwan ibtisaamada iyo qosolku waa kala duwan yahay ibtisaamadu waa muusoodka waa dhoolla caddaynta middaasi ajir baa laga helaa waqta nabiganu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tabassumuka fii wajhi aqiika sadaqa walaalkaa markaad iska hor timaadaan inaad muusooto dhoolla caddayso oodan qabiid ahayn waa sadaqo ajir baa laga helaa taa waa muusoodka waana tii nabigeennu u badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh midna waa qosolka kahda waay ka noocaasoo kale a nabigu wuxuu lehy sal lla alay slam ha badsanin dabcan marka qaarkood ruuxu waa ka dhacayaa laakiin maxaa la diidan yahay ha badsanin dhib buu leeyahayoo ruuxu markuu qosolka badsado qalbigiisaa dhinta qalbiga maxaa ka dhinta dareenkii baa ka dhinta cabsidii baa ka dhimata walbahaarkii iyo murugtii aakharaa ka dhimata laanna qalbiga markii aakharo iyo geeri iyo macaanidaasi ka buuxdo qalbigu inuu iska qoslo ruuxu iska kahkahleeyo uma badnaa waxaa la doonayaa in ay badato cabsidaada iyo murugtaada waxay keenaysaa in uu qosolkaagu yaraado qalbigaagu noolaado macaanida aakhara ku noolaato mustaqbalkiiyo waxa soo socda qalbigaaga inay ka buuxsanto cabsida alle iyo murugta aakharo inay qalbigaaga buuxiso ma diidayso muusoodka ma diidayso laakiin qosolkaa faraha badan baa la diidan yahay ee dadku in badan u badan yihiin shantaa qodob oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu yidhi yaa iga qaata oo ku camalfala ama cid ku camalfasho gaadhsiiya abu hurayra yidhi rasuul ilaahay oo anaa qaadanaya oo ku camalfalaya war innaguna soomadha inaan dhahno maa innaguna soo inaan farta u taagna maa mise abu hurayra keliyaan ku daynaa oo annagu uma baahnin miya waa u baahanna rasuulka ilaahay oo annagana waa qaadannay waana ku camalfalaynaa dadkana waan gaadhsiinayn قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله